daawade weli hore ma u aragtay mase u maqashay bahalkan. Bahalkan kuu muuqda waxaa loo yaqaanaa Komodo dragon. waa qalajista ugu weyn dunida. waxay leedahay daba dheer, dhuun adag, qal adag oo misna jilif ah. qalkeeda adag iyo dhuunteeda adag waxay u sahlayaan inay dejiso xajmi weyn oo ugaar ah hal mar. Komodo dragonka culayskiisu wuxuu gaaraa 154 pound ama 70 kilogram. midka ninka ah ama midka lab ayaa inta badan ka culus kana adag midka dhediga ah. bahalkan waa bahal khatar ah oo xitaa aan cafinayn bini'aadanka, laakiin nasiib wanaag waxaa laga helaa hal meel, waana jasiirada ku yaala dalka Indonesia. cuntada uu cuno dabcan waa wax walbo hilib ah, laakiin markuu yaryar yahay wuxuu cunaa xasharaadka, masaska iyo shimbiraha. markuu weynaado uu gaaro ilaa 5 sano wuxuu cuni karaa ugaarta waaweyn sida daanyeerka, ariga, khansiirka iyo deerada. halkan ayaa sidoo kale cuni karaa xoolaha waaweyn sida lo'da, asagoo adeegsanaya qaniinyadiisa sunta ah. wuxuu qaniinayaa neefka wuxuuna sugayaa maalmo ilaa inta ay ka dhimanayso. Komodo dragonsku waxay wax ka arki karaan 300 oo mitir si ay u cunaan ugaartooda. way u dhuumanayaan, ka bacdigeedna waxay adeegsanayaan orod iyo awood. bahalkan ayaa markaad kor ka aragtid aad u malaynaysaa inuu yahay bahal aan soconayn, laakiin waa bahal aad u dheereeya, wuxuuna jari karaa 16 ilaa 20 kilomitir saacadiiba. cimriga Komodo dragonsku wuxuu gaaraa ilaa 30 sano.